بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو جوبا انستيتيوت of professionals يوتيوب channel وكورسنا 4000 session English 4000 session English practice course book oo inoo soo siinaa عبد الرزاق محمد عبديه. maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeennii afraad 4000 session English words practice book 1 lesson 4 oo ku yaalo page-ka 15aad. afartan kun ee ingiriiska aadka muhiimka ee la isticmaalo waxaana ka helaysaa buugga aan idin dhigay telegram groupka hoose ee linka aynaysa telegram groupka gala halkaasa buugga kala digaa si aad u hesho buugga iyo aksesadiisa. haddaba waa cashirkii afraad maanta waxaana ka bilaabanayaa kelimada 31 ee taxanaheena taasoo ka dhigan inaan hore usoo qaadanay 30 eray oo aan kusoo kala duubnay 3 video oo mid kasta aan 10 eray kusoo duubnay. erayga maanta aan qaadanay ugu horeeyo waa loud. waa erayga loud. loud macnihiisu waxa weeye cod sare. cod sare ama cod sare ayaa waxaa la loud waana adjective. loud waa cod sare waa adjective oo waa sifo. wuxuu yidhi if a sound is loud codka hadduu sareeyo it's strong wuu xoogan yahay and very easy to hear si fudud ayaana loo maqli karaa. waa kana marka tusaalihii the man's voice ninka codkiisa was so loud aad ayuu u sareeyey that we all could hear him annagoo dhan ayaa maqli karin. marka ereyga sound oo jumlada loud oo ka jumlad lagu geliyo the man's voice ninka codkiisa was so loud aad ayuu u sareeyey that we all could hear him annagoo dhan ayaa maqli karnay. ereyga labaad ee cashirkeena waxa weeyaan nervous. nervous macnaheedu waxay noqon kartaa kacsan, xanaaqsan, walwalsan. qof xanaaqsan ama walwalsan ayaa waxaa la nervous. waa ka marka definitionka nervous when a person is a nervous qofka markuu xanaaqsan yahay ama walwalsan yahay they think waxay malaynayaan something bad will happen inuu wax u dhici doono. waa kana marka tusaale example the boy became nervous wiilka wuxuu noqday mid aad u walwalsan ama xanaaqsan ama kacsan when he heard the news markii uu warka maqlay. marka the boy became nervous when he heard the news. the boy wiilkii became nervous wuxuu noqday mid xanaaqsan ama walwalsan when he heard the news markii uu warka maqlay. kelimada saddexaad waxaa weeyaan noise. noise waa qaylo ama buuq. noise waa buuq ama qaylo. ereyga noise waa noun waa magac macnaheeda verb maaha. waa kana marka qeexidin a noise is an unpleasant sound waa cod aan fiicnayn. a noise is an unpleasant sound waa cod aan fiicnayn. unpleasant waxaa la wax ku dhibaya oo aada jeclaysan sida marka meesha buuq tahay iyo waxaas. unpleasant sound waa cod aan fiicnayn ama aan la jeclaysan. marka ereyga noise waa buuq ama qaylo. a noise is an unpleasant sound. a noise qayladu is an unpleasant sound waa cod aan fiicnayn ama aan la jeclaysan. waa kana example the crying baby cunugii oo yahay made wuxuu sameeyey a loud noise qaylo sare. marka loud waa ereyga hore usoo aragnay loud ereyga hore usoo aragnaya iyo noise oo la isku daray wey. the crying baby cunugii oo yahay made wuxuu sameeyey a loud noise qaylo sare kor buu u qayliyey wey. marka dabcan waa garan kartaa waa dhibsanaysaa weynta. the crying baby made a loud noise qaylo sare ayuu sameeyey. ereyga marka 34 isla kale ereyga afraad cashirkeena maanta barayna waxaan project. project waa mashruuc ama shaqo. project waa mashruuc ama shaqo waana noun. a project is a type of work waa nooc ka mid ah shaqada that you do oo aad samaynayso for schoolka kale marka shaqa lagaga soo dirso or a job ama shaqada aad ka shaqayso goobta shaqada shaqa lagu soo diray. marka ereyga project waa mashruuc ama shaqo. wuxuu yidhi a project
is a type of work waa nooc shaqada ka mid ah that you do for school oo aad ka shaqayso oo malaha iskuulka lagaga soo diray or a job ama goob shaqo ayaa lagaga soo diray goobtaas shaqada ayaa lagaga soo diray waa kana example his afternoon work project was to paint the room green how did his afternoon work project shaqadii mashruuciisa shaqo ee galabka loo diray was to paint waxay inuu rinjiyeeyo the room qolka green cagaar inuu ka dhigo how did his afternoon work project shaqadiisi galabka loo diray was to paint waxay ahayd to paint the room green inuu qolka rinji cagaar mariyo to paint the room green inuu qolka uu cagaar ku rinjiyeeyo marka ergana saas ayuu macnihiisa noqonaya ereyga kale aan barayna waxa weeyaan scare waa cabsin scare waa ka cabsin waa verb taas waa ka ugu dar verb waa ficil scare waa ka cabsin ama ka nixin marka laga nixiyo ka nixin ama ka cabsin labadaba waa ay noqon kartaa ka nixin xataa way noqon kartaa ka nixin ama cabsin yes ka nixin slash ka cabsin intaba way noqon kartaa marka ereyga marka waxay scare waa ka nixin ama ka cabsin to scare someone in qof laga nixiyo is to make them feel afraid waa in laga dhigo inay cabsi dareemaan is to make them feel afraid waa in laga dhigo kuwa cabsi dareemo scare waa ka nixin ama ka cabsin to scare someone qof in laga nixiyo is to make them feel afraid waa in laga dhigo kuwa cabsi dareemo waa kana tusaale marka my uncle was scared by adeerkay ama abtigay waxaa ka nixiyey by what he saw in the room wuxuu qolka ku arkay waa kana my uncle was scared by adeerkay ama abtigay waxaa ka nixiyey what he saw in the room waxa uu qolka ku arkay malaha wuxuu ka naxo arkay ereyga 36 isla markaana ereyga 6 casharkeena waa secret waa sir secret waa sir ama wax qarsoon oo la ogeyn secret waa sir ama wax qarsoon waana nool labada a secret is something waa shay that you do not tell other people oo dadka kale u sheegay a secret is something that you do not tell other people waa shay dadka kale aadan u sheegayn tusaale the two boys were sharing a secret labadii wiil waxay wadaagayeen sir the two boys were sharing a secret sir ayay dareemayeen marka sir bay wadaagayeen the two boys were sharing a secret sir ayay wadaagayeen ereyga 37 ee taxanaheeni waxa weeyaan shout waa qaylin waa qaylin ama kor u hadlid marka kor u hadasho waxaa shout waa verb waa ficil to shout is to say something loudly to shout inaad qayliso is to say something loudly waa inaad wax kor u dhahdo to shout is to say something loudly inaad qayliso waa inaad to shout inaad qayliso is to say something loudly waa inaad wax kor u dhahdo tusaale cadaysa my boss shouted at me booskayga baa igu qayliyay boss waxaa la qofka madaxda ku ah my boss qofka madaxda ii ahaa shouted at me wuu igu qayliyey because I was late for work
shaqadii baan ka soo daa. My boss shouted at me. ruuxii madaxda igu ahaa baa igu qayliyey because I was late for work. sababtoo ah shaqadii ayaan ka soo daa. ereyga kale aan barayna waxaa weeyaan smell waa urin. waxaa marka aad uriso oo sanka aad ku uriso waxaa lahaa smell. sidoo kale waxay kaloo noqotaa noun oo ah carafta urkana waxaa lahaa smell baa lahaa. marka wuxuu yidhi to smell something means inaad wax uriso is to use your nose. waa inaad isticmaasho sankaaga to sense it inaad dareento. To smell something inaad wax uriso means to use your nose. waa inaad isticmaasho sankaada to sense inaad dareento. waa kana waa tusaale. The two friends smelled. labadii saaxiibaha waxay uriyeen the flower ubax. The two friends smelled the flower. The two friends labadii saaxiibaha smelled the flower ubaxi bay uriyeen yani sankay saareen. ereyga 39aad waxa weeyaan terrible. waxaa lahaa aad u xun. aad u xun. If something is terrible, shay hadduu aad u xun yahay, it's very bad. aad buu u xun yahay. ereyga marka waa adjective, waa sifo. wax aad u xun. If something is terrible, shay hadduu aad u xun yahay, it's very bad. aad ayuu marka u xun yahay. The way he treated his classmates. qaabkii uu ula dhaqmay ardaydii ku fasalka ah was terrible. aad bay u xumay. The way he treated his classmates was terrible. The way he treated habkii uu ula dhaqmay his classmate ardaygii ku fasalka ahaa hal arday was terrible. aad ayay markaa u xumayd. ereyga 4aad isla markaana ereyga u dambeeya cashirkeena videogan waxa weeyaan waa was. see loo akrinaya dadaasi ka khaldan loo akriya. ereyga waa was ka sii xun wey macnaheeda. laba shay baa isbarbar dhigaysa ka sii xun. waana adjective, waa sifo. If something is worse, shay kale hadduu ka xun yahay, it's of poorer quality. wuu ka tayo liitaa than another thing shay kale. marka ereyga was wuxuu ka yimid bad. fiiri bad xun, was ka sii xun, worst ugu xun. marka was ka xun. marka if something is worse, shay kale hadduu ka xun yahay, it's of poorer quality. aad buu uga tayo xun yahay than another thing kuwa kale. tusaalaan business was worse this month than the last month. business ganacsigii was worse wuu ka xumaa this month bishani than the last month bisha lasoo dhaafay. aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. fadlan please do the exercise on page 16 kasoo shaqeey exerciseka pageka 16aad of the essential English workbook by Pollination. fadlan ha ilmaamin inaad subscribe saarto isla markaana gambaleelka taabato YouTube channelkeena si casharadan maalinlaha aad la socoto. midda kale waxaan rabaa inaan ardayda u sheego in maadaama 40 erey maanta aad baratay, fadlan joogso oo tartan samee. insha Allah taala hadda ardayda la socoto koorsadan waxaan qaban doonaa mar dhow tartan ayaan qaban doonaa oo ku saabsan erayadan baa lagu tartami doonaa. waxaa la tartami doonaa markay erayadan ay gaaraan 50. hadda 40 weeye. 50 markay gaaraan tartan baan qaban doonaa. haddana 100 markay gaaraan tartan baan qaban doonaa. after every 50 words waan joogsanaynaa wax yar. hal cashir baan hakanaynaa. waa la tartamayaa. weliba tartan live ayuu noqon doonaa. waa mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.